وشان واحد دنيا سوق الوطن أفريقيا markuu ka tegay ka tegay New York ayuu ku isdiiyay blueprint markii hore aad u shaqeeyay Ameerikaanku ijaabti gabdhaha soo galaya wixii dadka odayaasha haweenka sababta waa fura meel iska dhigay waxaasoo in ma soconaya haddaan inagu isu tashano haddaan inagu isu fargoodno mudane secretariat labada gole oo aqalka sare iyo golaha shacabka siyaasiyiinta kale oo timid meesha gabdhaha Soomaaliyeed oo xaqiiqatan laf dhabarkeennii meediyaha waa idin salaamaya سلام كبعدي حرونتان waxay tahay si fiican baa loo sharxay laakiin wax alla iyo wax walba markay bilaabanayaan Soomaalida waxa loo malaynayaa wax dawladda dhibaya mucaarad ku ah ama wax gaarsiinaya tan waa ka baysa ee mucaarad dawladda dhibayso wax gaarsiinaysa ma waxaa kaleeto oo ay u muuqataa xaruntaanu sidii uu professorku sheegay researches fara badan baa la sameeyaa researchesku marka wuxuu kaaga baahan yahay in aad asaga had iyo jeerba tilmaanto oo reference ku samayso marka wax badan oo researcheska ahna waa khalad oo waa khaldan yihiin tala soo jeedintu waxay kaga duwan tahay kugu khasbi mayso wax laga yaabo inay wax khaldan tahay walaakiin waxay waraabinaysaa maskaxdaada oo talada ay soo jeediyeen ama xaruntu soo jeedisay ayaad maaragtay fahmaysaa oo qaadanaysaa ayadoo aan kugu ahayn khasab sida researcheska jaamacaduhu ay bixiyaan waxaa xarunta iyo dadka maamula ay og yihiin haddii qofka la doorto waxaa habboon in fikradiisa uu dalka ku hogaaminayo lagu raaco laakiin haddana in tala bixin la siiyo ilaa waa aadamiye waa waxa asaga masiixa marka annagoo og inaan madax dooranay oo taladii u dhiibnay oo ay talinayaan oo abaartu ay tahay in aan ku garab gallo haddana inaan la talino oo ayaga talada siino oo shacbiga siino waxaan u arkaa wax wanaagsan oo dheeraad ah inay tahay oo xaruntu ku bilaabatay walaalayaal waxaan hubaa anigu haatan waa maanta la daafuray xaruntan laakiin hadhowto programkeeda waad ka heli doontaan maxaa yeelay waxaa programka daadihinaya dad macrifo u leh dadka la doonayo inay ka howlgalaanna waa adinka shacbiga weeye waa rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo aqoon-yahan iyo siyaasi intaba ayaa ka howlgalaya laakiin haddana waa loo nidaaminayaa waxaa loogu dhigayaa si aad u wanaagsan oo ay wixii u fahmaan waxaan hubaa ayadoo haatan laysi su-aalayo talow maxay noqon doontaa dib in laga jeclaanayo maxaa yeelay dariiqa ay ku socoto ayaa ah dariiq macno leh maanta intaas ayaan idinkugu soo gaabinaynaa laakiin maalmo badan ayaad arki doontaan muddo dheer annagoo qaadanay oo haddii alla ka dhigo activity-geedu wax weyn oo ballaaran ayay noqonayaan salaamu ullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guuleyso guuleysta ragana sidoo kale ha guuleystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان وكهد ليا مركو هوري عن كودا مسج أما فرين قدومي هيجا ورك هوانك خرن كسوماليات مربطولش أحمد قبل أو جرته هول خرن أما هول أمهات بقى هاد بس أو تغاني وكيل أيان كأهل وحان كلام أهل ليا قبل هيجا هوانك خرن كسوماليات قبلها الصوماليين قبل يدقمو انت قبلها مقعودين ku hadlaya sida uma inay kulli gabdhanu iga dambeyn doonaan waxaan aad ugu faraxsanahay invitation ka markii nala keenay oon aragnay fariintan daahfurka nagu soo dhicin mana ku fikirayna anaga fikir waxay nala noqotay aad u fiican never ma dhicin madaan horeyna uma dhicin hadduu dhacay hadda markii waxaan aad ugu faraxnay ganacsada Cabdulqaadir Gurey Xaaji oo walaalkeena ganacsada ah oo siyaasad waligiis shaqo ku leeyahay oo aanan soo galin ganacsi waligii abid maanta wuxuu noo furay farxad ah daahfurka soo jeedinta Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa in arrin farxad ay tahay aniga xildhibaan ma noqon laakiin waxaan noqonay siyaasiyiin gabdhaheena haddaan mutacallim ahay iyo haddaan guri gari jiray 27 sano maxamed siyaad kadib tii xataa gurigeeda joogto waligeeda aan alif baa qoran maanta waxay ka khibrad badan tahay PhD professor Holder ay ka khibrad badan tahay waay reason ay ugu khibrad badan tahay waxay noqotay laf dhabarkii sidoo noo sheegay gudoomiye Cabdulqaadir khayr Allah si oo dhajir markii nagu soo dhaweeyay laf dhabarkii ay noqotay waxay qaaday hawshii ragga waxayna u baahneed erayga maanta lagu dhawaaqay ayay aad ugu nugleed hooyo Soomaaliyeed maanta way haysaa hooyo Soomaaliyeed أنا مزاجكاس كل أنا كشيخ علي سعيد أهان وحن جالسينا يا قبر كساء الصومالية نين كساء وحجرده شعب كيك الصومالية دولة ما جرتوا إلا دولة وشعبك دولة دينا جرتوا وشعبك هذه شعبك إن جعلين أما أنا من هذا الفريق أنا قرب على السين دولة دينا بس عن ضغطه ما أنا معارضين ما أنا محافظينه تهر الله الشيء دينارنا والشيء وجعلها دولتنا لكن الرجال أي أرنب معنا وما هالسنتين وأنا صد ويننا وحنا إذا كعسرنا عصي عليني هذا قدومية هي حبياشة ملذين حبنا هواك كم ذا هدي على الله هنا هدينا الله يسده نودرتان كنت يقول أنت ما هالسنتين Local, ¿no? ¿Qué estás local? نيهو نكي في بيجي اللي هذا مصطفى على السمك هذا أنا مشروع أنا ودنا مشروع حوي دراها صوماليات كشقين دون ماها مشروع سيجارة وجد سيجارة لماها وحانون هاي دد سوي ميت كحنو الصدي لبعض بعض صوماليا كجرتها أي سوح القامي إن هي بل وحسكين هذان أي سوريستان ماها مشروع فائدة دونا ماها مشروع
ama dawlad u shaqeeya ama hay-ad u shaqeeya maalmaha waa caado naqatay hebel intuu ku xiran yahay wuxuu ku xiran yahay Dubai hebel intuu ku xiran yahay wax ku Ethiopia annaga maalna kuma xidhin waxaan nahay waa maasantiin marka waxaan rabaa inaan idin sheegno idinka shaafino ujeedkeenu wuxuu yahay waxa uu yahay ururkan uu yahay waxa aan meeshaan isugu nimid ma ahin wax dara gaara ma ahin waa tala Soomaaliyeed waa tala ummadda ka dhaxayso qof walba idinka mida waa tala wax ku leeyahay ma nihin dad maal geystay wax soo aruursada ma nihin waxaan sheegayno waa wax laga wada dhaxeeyo oo isla leenahay marka waxaan leenahay soo dhaweynta ka sokow ogaada qof walba idinka mida waa naga mid qof walba idinka mida waa naga mid waxaanu nahay dad aqyaar isu tagtay ee isweydiiso istiri war maxaa Soomaaliya u dana wax macaasha ma lihin dawlad kuma xirnin ajaanib kuma xirnin waxaan nahay dad iskood ay is aruursaday oo soo yimid marka waxaan leeyahay kulligiin ku soo dhawaada barnaamijkan waxaan leeyahay barnaamij laga wada dhaxeeyo waa barnaamij Soomaaliyeed mucaaradna ma nihin say sheegnay muxaafidna ma nihin waxaanu nahay mar walba dad daba socon doono danta Soomaaliyeed maxaa Soomaaliya u dana arrinkaas ma fiican yahay ma qaldan yahay waxaan sameyn doonaa shirrijaada qaban doonaa waxaan qaban doonaa kulamo sameyn doonaa doodaan qaban doonaa kullu ujeedada ay tahay wanaaga Soomaaliya looga shaqeeyo kaliya marka waxaan u soo istaagay inaan intaas idin sheego wixii ka dambeeyay xogeynta idin sheegi doonto waa mahadsantihiin